mataqaanaa dalka qaaradda Afrika ku yaalo ee ugu jasiiradaha badan islands mataqaanaa haddaadan aqoonin muuqaalkan yar ee la daawo adaa yaabi doonta waa u dhaaran karaa 99.9 boqolkiiba dhalinyarada Soomaaliyeed ee ugu xiran maba ogeenba Soomaaliya inay leedahay 140 jasiiradood Soomaaliya ay tahay dalka ugu jasiiradaha badan qaaradda Afrika ma aadan ogeen Allahu akbar ويا هالمر وحربا أفكار قلاد وحلو لها let that sink in الله يعني قارة أفريقيا وقارة وين طلال فربضنا وكيالو صد أفريقيا بدأ كفانتا تنزانيا بدأ كفانتا كيانك بدأ كفانا لكن جزيرة صوماليا قبطه ما قبان تاريخ ذا نلقو مبرو اسكولة ده وحي إذر نوقت إيجان تاريخ ذا شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن مسعود بن هبل ورمحا إيجا قال عني ما إيجا قال الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن هبل توك دلي أو صومالي ولي صا إيمانين وحو يا أوجين تاريخ دي سمحا إبريسا اسكولة ده تيك توك وإيجا حرا يا ضاع عيتما رالي هذا اسكولة ده صومالي وانا مدى دالسين ما نبرتان جزيرة صومالي كيالو جزيرة صومالي كيالو ما أوجا شاكيسان عرورت ما أوجا شاكيسان ور برايمريغا كوديغا ور انترميدييت كوديغا ور سكندريغا كوديغا ور جامعadaha كوديغا 140 جزيرة صومالي كيالو عروا كاسا هل جزيرة مقعيدة بلشيك هذه عروا كاسا هل جزيرة مقعيدة بلشيك باجوني واغا يراي waxa maqli jiray mataqaana riixi amal ay leeyahay waxa maqli jiray jasiiradaha baajuni waxa maqli jiray jasiiradaha kooyame aan maqli jiray laakiin waxyaabihii iskuulada ay noogu soo dhigeen xabad aan ka faa'iidnay haba yaraatee ma jirto manhajyada gibigooda waa qaldan yihiin okay ka gudub Soomaaliya waa dalka ugu jasiiradaha badan qaaradda Afrika jasiiradu waxaa jirto ku taalo Soomaaliya iyo Yemen inta u dhaxayso ee loo yaqaan Socotra yaa iskala Socotra ma isweydiisa ma ogeed dhalinyarooy ma ogeedeen jasiirada Socotra دو واجي سلطنة سوماليا كتلين جرتي بقرطويدي سوماليا كتلين جرتي اللي يغني عوضة حتى كانوا عايزين يسوي شيء بقرطويدي مقدشو مقالدة يدقوا فيريا وعايزين يسوي شيء بقرطويدي أجوران بقرطويدي فربنا صومالي ما لها أود بدن سيلع مقدشو مركعدي براوي ما لها الدنيا وحكمت أهايان جناسية بدأ لاستعماله يسيلينج وحات ما لها وحكمت مراكن مجري جزيرة سقطرة صوماليا اسكالهات مالكو قرو نما بران حتى كور اسكولدا نلغو ما برو سقطرة إن يمن leedahay ee naga dhaadhiciyaan جزيرة سقطرة يمن waxaa siiyay Ingiriis ka siiyay anaga iska lahayn jasiirada qurux badan ee Saqatra oo geedaha Saqatra jasiirada Saqatra geedaha laga helo ku yaalo jasiiradaasi dunida meel kale oo laga helo ama ay ku yaalaan haba yaraatee ma jirto meegaas intaas 140 jasiiradood waxaan noogu dartaa Saqatra ay jasiirada ku heeraarsan 200 iyo maazaad jasiiradood ay Soomaaliya leedahay ya u dagaalamaayay dhulkeeni hadda aabay faraha kasii baxay tug dhalay oo hogaami kooxeed ah oo maamul goboleed madax ka ah dhulkii dal shisheeysiinooy maanta daana idin la hadlaayo maanta daan oo qamiis ah Kenya Ethiopia way heshiyeen haddaadan ogeen warkaas gadaal ka faahfaahin doona way heshiyeen waxay ku heshiyeen in ciidamo isku dhaf ah labadan dal ka socdo oo AMISOM ka baxsan in Jubbaland la dhaxkeeno waa talaabadii ugu horeysay ee dhul qaadashada waay taas waa soo faahfaahin doona laakiin maanta barnaamijka qaybta farxadu ku saabsan yahay jasiiradahan quruxda badan ee Soomaaliya ku yaal ka gudub ma xasuustaa maapkaas yaa xasuusto dhalinyaro refresh ku sameeyna maskaxdiina maapkaas yaa xasuusto Kenya 12 sano ka hor hadda muddo laga joogo aan xitaa waagis Kenya joogay Kenyanka waxay damceen in badeena qayb kamid ah ay xog ku qaataan wait a minute intaas adiga ogeed laakiin wax kale aadan ogeena jiro Kenya waxay u tagtay maxkamadda adduunka waxay horgeysay qareeradaas foosh xun ee horgeysay ee ku leedahay xuduudkayga kulaha Kenya xuduudkayga badeed meeshaan ku egaa mujada qaybtaas mujada hort ayuu ku egyahay kulaha xuduudkayga macnaheedu ma fahanti jasiiradaha Soomaaliya ugu faraha badan
jasiirada Bajuniga iyo Koyame dhulkaasi ku jiraan macnaheedu waxa waay hadii Kenyaanka waagaas ku guuleysan lahaay in ay qaataan baddeena qaybtaas ayaga ay xariiqdeen inay qaataan hadii ku guuleysan lahaayeen bad kaliya iyo ceelal shidaal iyo kheyraad kaliya ma weyn lahayn Soomaaliya jasiiradaha badankood Kenya naga qaadan lahayd hadda liiska dib u fiiri Kenyaanka kuma jiro liiska dalalka qaaradda Afrika ugu jasiiradaha badan Kenya kuma jirto marka ayaga waa awake waa dad soo jeedo oo og waxyaabaha anaga aawadano oo muhiimka ah oo uga fiicanahay qaaradda Afrika way og yihiin anaga ma ogin hadda waagi dowladda Soomaaliya iyo idaacadaha Soomaaliya oo eberka ah waxba ogeyn Soomaaliya idaacad kuma talabo wax ay og yihiin male qof waxaan research gareenaayo oo analyze gareenaayo oo xaqiiqdi ku sheegay male waagi hadda waxay naga dhaadhicin jireen marka daawatay telefishinada Soomaaliya iyo badda Soomaaliya dhinac laga qaadina war ma ahan jasiiradaha rabeen sidoo kale inay qaataan taas ha loo sheego dhalinyarada Soomaalida waa in la kiciyo 140 islands boqol afartan jasiiradood ay Soomaaliya ku yaalo Sokotrana anaga iska leh walaalo dhulkeena marka difaacano oo ka xoreena cadowga dhalay tuuga qawaarishka ah tuuga Etoobiyaanka ah tuuga Kenyaanka ah baddeena marka tuuga Carabka ah marka dhulkeena iyo baddeena ka xoreeno jasiiradaheena ah xoreysano Sokotra ha loo diyaar garow 2050ka Soomaaliya markay kacdo Sokotra ha lagu soo daro dhulweynaha Soomaaliya Somalia strategically the most powerful country ayuu noqon doonaa dalka ugu awoodda badan dunida insha Allah ta'ala dhalinyaroy baraarujintaan walaalayaal si faafiya dhalinyarada dhalan doonto kuwa 5 jirka ah kuwa 10 jirka ah hala kaco hala midoobo mintaas kaliya ayaa dhulkan ku soo ceshan karnaa